qofka mu'minku been ma sheego mu'minku fula ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu rasuulku yidhi mu'minku bakhayl ma noqon karaa haa uu noqon karaa buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam mu'minku been ma sheegi karaa ma sheegi kara buu nebigu yidhi mu'minku been nin baa nebigu yimid oo ku yidhi yaa rasuul allah ilmahaygii hee faraskaa isaga ayaa ku deeqoo siiyey markaa buu nebigu ku yidhi inamadaadoo dhan faraska iyakana mid midna u wada siisay markaasuu yidhi maye isaga ayaan jecelaho waan u garto waan siiyey markaa buu nebigu yidhi anigu cadaalad darro markhaati ka noqoni maayo ama wada sii ama ka wada daa buu rasuulku yidhi nebigu ummadda calayhi salatu salaam wacdinaya ayuu camar binu caas gacanta taagay yaa rasuulallah su-aal baan qabaa su-aashaasi waa maxay dadka ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg markaa buu nebigu yidhi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi ma aha jacaylku cishqigu waa gooni xuquuqda in la ilaaliyana waa gooni waa la weydiiyey nebiga dadka ayaad ugu jeceshahay caaishaan ugu jecelahay buu rasuulku yidhi markaa buu camar u xishoodo wuxuu yidhi xaasaskaaga ma aha raggaa ka hadlayaa saxaabadaada markaasuu nebigu yidhi aabbaheed baan ugu jecelahay markaasuu yidhi haddana cumar binu khadaab buu nebigu yidhi halkaa markaan maraya saddexdii qof ee u horraysa aan iska waayey ayaan iska aamuso waxaan ka baqa inaan noqdo qofka ugu dambaysu nebigu saxaabada ugu jecel yahay jacaylku waa cishqigu waa gooni laakiin xuquuqda in la ilaaliyana waa baab gooniya lidaalika xaasaskeenna xuquuqdooda waan ilaalinaynaa ubadkooga xuquuqdooda si midaataan u ilaalinaynaa u kala eexani mayno nin boqor ayaa jiri jiray qasri buu dhistay qasri muddo dhan baa qasriga la dhisaayey maalintii qasrigii faraha looga qaaday ayaa la yidhi waan dhammayna kaale naga guddoon jidka uu sii marayey ee qasrigiisa loo marayey aqal yaroo cariish oo buul ayaa ka dhisan cariish baa ka dhisan boqorkii baa yidhi aqalkan ayaa leh waxaa la islaan duqa ayaa leh yaslaan duqa ayaa leh wuxuu yidhi aqalkan aqalkaygu iga baahdile cagaf mari oo qaada buuri gebigiisaba buurka tuura buuri islaantii duqra ahayd ma joogto way timidday galabtii bay timidday meeshii waxay arkeen waddaa laga dhigay meeshii markaasay xaggan ka wareegtay way weyday aqalkeedii xagganay u wareegtay way weyday wax xataa qorye iyo wax ka hadhay way weyday askar baa u timid oo waxaa lagu yidhi ka dhaqaaq meesha eeyaa markaa bay tidhi maanigaa qaldan mise dhulkii baa la rogay maya dhulka lama rogino dhulku waa sax weeyaane xaa kaa maqan sheegadaa lagu yidhi markaa bay tidhi aqal cariish oo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday mad aragteen waxaa la yidhi waad war laadahay saaka waa lagu waayey boqorkii baa yimid oo yidhi aqalkaygiibu fool xumeeye qaada oo maaragtaane kala tuura beedna waa la qaado buurtaasaa laga tuura aqalkaagii oo islaan miskiinada oo da'weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi soodigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu anaa dulmiga iska xarimay baa ilaahay yidhi ilaaha khaaliq ee rasaaqa ayaa kule addoommahayga ma dulminayo dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeele ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayey maxaad addoonka iiga qaban weyday bay ku tidhi duca badan may ducaynin erayadaasay ku ducaysatay laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tihi markii xoolahayga sidaa loo galaayey aqalkayga marka boorta laga tuuraayey adu miyaanad joogin soodigii yidhi ma anigaa dulmiga iska xarimay mise lay dulma adu maanad joogin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil waa muntaqim oo u arguda addoomihiisa ilaahay dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sana la dhisaayey dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana boorta uu ilahay darajiisa ka tuuray lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana ummaddaasi way duntaa haddee mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin aa shahaadanaya waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa diinteenna islaamka waa inaan isku qadarinaa diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa xuquuqda jaarka waa saddex bay culimmadu yidhahdeen jaar xaq keli uu leeyahay jaar laba xaq buu leeyahay jaar saddex xaq buu kugu leeyahay jaarka xaqa keliya kugule waa jaarkee waa jaarka gaalka qof gaala daristii ka soo qaad isku diin ma tihiin waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali cabdillahi bin cumar bin khadaab radia allahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudi ayuu ahaa cabdillaahi markuu ka yimaada masaajidka reerkiisa wuxuu ku ohan jiray cuntada aad kariseen jaarkeen wax muga geysen buu ohan jiray waa yahuudi nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa hala iga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa waa 120 kun oo dirham buu yidhi markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun boqolka xaggeed ka keentaa lagu yidhi boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa 20 laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisa boqolku ku iibinayaa buu yidhi waana kuma sheekhaasi waa cabdullaahi ibn mubaarak allah u naxariiste qofka muslimka
akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan tani waa addoontii kani waa addoonkii ha odhanine kani waa bani aadam oo ilaahay baa karaameeyey adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay inaad isagana aad u damqato ood u bandhigtaa diinta islaamka marka diinta aan ka shaqayni weynay waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhalinyaradu dad kale ay ku daydaan oo dhaqan dad kale aan qaadano oo caqli dad kale ay leeyihin aan ku socono maxaa keenay in layna bedelo maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay doonayba ha joogaane waa layna bedelay waa layna saameeyey maxaa lagu saameeyey dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli adigu laakiin haddaad dadaali lahayd xaqa adigu aad waddaa ummadda kale gaari lahaa naftayda iyo lafihiinaba waxaan ugu naseexaynayaa inaan diinta dadaalkeyga aan u kacno oo aan culammada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine haweenkeenna dhallinyaradeenna madaxdeenna minjaheenna caamadeenna culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna inaan diinta dadaalkeyga gacmaha isku qabsanno oo nidhahno wactasimuu bixabli illaahi jamiican inaan sidaa diinteena u wada kacno insha allah wada diyaar garooba insha allah soo diyaar ma nihin insha allah allah inagu anfaco saasuu noo soo dhawaysanaya innagana allah idiin soo dhaweeyo